Okay, asxaabi soo dhawaada. Cashirkan marka waa cashir aad iyo aad oo laba daqiiqo inuu ka bato marabo haddana ka yaraanba. Marka jebron.com ken gatay, markaan soo gatay waxaan ku daray hosting company-gii. Marka waxaan rabaa marka inaan ku tuso quickly oo si dhaqsi leh inaan ku tuso in macnaha ayna wada sheekaysanin ama ayna isfahamsanin. Macnaha meesha waxaa ku qoran your domain is not pointing to hostinger. So hostinger macnaha company-ga waa magaciisa. So marka waxaan rabaa inaan ku tuso in aan isku darno. So marka waa kana jebron.com GoDaddy aan ka gatay, kadib waa baxay my hosting company aan ku daray, wax kale ma samaynin, laakiin isma fahamsano. So marka inaad fahamsiino waa marka DNS kan ku dhufanaa, meeshan DNS meesha ku dhufo, kadib meeshan ay ku qoran tahay hoos soo dego. So meeshan name server ku qoran tahay aan rabaa inaan ka bedelo si macnaa ay isku fahmaan. So name server kan i copy garay. This is the name server company hosting ka waaye. Marka hadda arrintan waxa aan samaynayo, haddii adiga ay shirkad ku samayso website-ka iyo waxaasoo dhan, uma xayirnid waxaan aan samaynayo, uma baahnid oo muhiim kuma aha adiga. Laakiin haddii adiga ay shirkad ku samaynin oo adiga aad samaysanaysid oo haddana aan isticmaalin company-gan GoDaddy iyo HostGator-kan aan wax ku samaynayo aan isticmaalin oo meel different company aad isticmaashid, processku waa same. Marka waxaan rabaa bas inaa intaas ogaatid, ina macnaa confuse kugu naqan, ina wixii aad bedesho waa isku mid. So marka hadda waxaan samaynaa marka use inta ma-uun aan leeyahay meesha ku dhufanaa meeshan oo inta ma-uun name server, kadib kanaan kii aan soo kobiyey aan geliyey oo qaybta koowaad ahayd, haddana qaybta labaad aan gelinaa, copy and then paste xaggan, kadib save aan leeyahay. Markaan save gareeyo wax yaraan sugaa. So markaas waxaa rabaa bas in ay inta sheekaystaan oo internetka xogo uu soo galo oo live ii noqdo, si macnaha aan hawsha kale aan usii galno oon Facebook aan ugu xirno oo hawsha ay usii socoto. So hadda marka haddii aan ku dhufto oo aan macnaha rabo inaan fiiriyo www.jebron.com, waa in macnaha company-gan uu soo baxaa uu leeyahay company-gan wax macnaha inuu hosting-ka yahay inuu soo baxa waa macnaha oo macnaha ay shaqayso. So marka u jeedin jebron.com markaan galay waxaa soo baxday in macnaha uu live yahay domain-ku hadda. So marka intaasaan rabay inaan cover gareyno. Cashirka ku xigi doona marka waxaa waaye inaan haddana isku xirno asiga domain-kan meesha oo hosting company-gaas oo ka host gareeyo, inaan u sheegno Facebook oon dhahno Facebook domain-kan ama magacan ama business-ka waxaa host gareeyo company-gaas oo macnaha ayaguna ay sheekaystaan si markaas hawsha ay fududaato oo Facebookna ay u fahmaan in company-gu uu yahay company oon shaqaysanayo oo rabo inuu lacag sameeyo. Markaas company-gan markaas Facebookna wax dhan waxay noqonayaan wax fudud. Marka soo dhawaada cashirka ku xigi doonaa insha Allah ku fasiri doonaa macnaha ku sharxi doonaa sida ugu fudud insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.